Ma jiraan ballanqaadyo ama heshiisyo naftaada aad la gashay? Waxaan kula wadaagi doonaa 4 ballamood naftaada aad la geli kartid. Ballamahaas waxaa ku dhaqmi jiray dad hore oo la oran jiray Toltec oo ka soo jeeda wadamada Laatiinka. 4tan ballamo waxay u isticmaali jireen si ay xoriyad shakhsiyadeed iyo farxad ugu noolaadaan. Waxaan ka soo xiganaynaa buug uu qoray qoraal la yiraahdo Don Miguel uguna magac daray buuggaas The 4 Agreements, 4tii heshiisyo. Heshiiska ugu horeeya naftaada aad la geli kartid waxay ku leedahay iska sax hadalka. Ereyada aad ay u culus yihiin waxayna saameyn ku yeelan karaan naftaada iyo dadka kale. Naftaada markaan leeyahay qofka bini'aadamka mar walba wuu isla hadlaa. Cod baa jira gudihiisa ah. Mararka qaar si qaldan ay iskula hadli karaa qofka bini'aadamka. Waxaa loo baahan inaad ka taxadirtid waxa afkaaga ka soo baxaya. Waxaa jirta oraah Ingiriisi oo dhahaysa say what you mean and mean what you say. Yani laab ha marin. Dheh waxa ula jeedid ulana jeed waxaad dhehaysid. Daaxanta carabkaagana ha laga amaan helo. Heshiiska labaad wuxuu ku leeyahay don't take things personally. Waxba ha u qaadanin shakhsiyan. Yani qof hadduu si qaldan kuula hadlo ama si qaldan kula dhaqmo ha u qaadanin in adiga wax ka qaldan yihiin oo si wax ka yihiin laakiin waxay si wax ka yihiin qofka sida qaldan kula dhaqmay xaqiiqda sidaas ah laakiin ha dareemin adiga si qofkan wuxuu sidan igu yeelaya in adiga si wax iga yihiin sidaas laajigeed waxaad helaysaa xoriyad dareen si fududna dareemahaga ma lagu kicin karo. Heshiiska saddexaad wuxuu ku leeyahay iska dhaaf malaha assumption wax loo yaqaano ha malaysanin waa qodob aad u adag runtii in lagu dhaqmo sababtoo ah caadiyan bini'aadanka wuxuu jecel yahay inuu wax iska qiyaaso oo mind games uu dheelo inta badan waxaad malaysanaysid waa khalad ma dhacaan inta badan si qaldaad badan ayaad ka fahmi kartaa malaha asaga wuxuu iskugu jiraa mid fiican iyo mid xun midka fiican waa sida inaad qof u cudur daarto sida hebel wuxuu ii soo wici waayey wuu mashquulsanaa halka malaha xun uu yahay inaad tiraahdid hebel ma rabo inuu ila hadlo sidaas ay uu soo wici waayey marka inaad wax ma malaysatid oo si qiyaasid waxaa ka wanaagsan inaad su'aal weydiiso qofkaad uu soo wici waayey oo kale adiga wac eese wax u jiraan xaaladda ka waran su'aal weydii su'aal ka keen. Heshiiska afaraad wuxuu ku leeyahay mar walba inta karaankaaga ah sameey inta karaankaaga ah maalinta kale way ka duwan tahay maalinta aad xoogan tahay oo aad caafimaad leedahay inta karaankaaga ah way ka duwan tahay inta karaankaaga ah markaad xanuunsan tahay ama ducfi aad dareemayso. Qoraagu wuxuu yidhi inta karaankaaga mar walba haddaad samaysid weligaa shalayn iyo eedayn waad isdaynaysaan. Intaasna waxay ahaayeen 4 heshiisyo aan ka soo xiganay buugga The 4 Agreements. Aragtidaada ka dhiibo heshiisyo kale adaahisidna qaybta commentiga na loo wadaag. Aad iyo aad u mahadsantahay daawashadaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.